wadayaal soo dhawaada markan waxaan idiin haynaa muuqaal cusub oo ka duwan muuqaaladii hore Huda Amu iyo Miss Wall oo soo bandhigay cidda sida rasmiga ciwaankooda hawada ugu saartay intaas in ka badan ayaan idiin haynaa daawadayaal balse marka hore waxaan iiga codsanaynaa in muuqaalkan aad follow dhahdaan siina share gareysaan idinkoo leeg dhahaya si muuqaalku uu gaaro saaxiibo badan hagaag sida la socotaan saacadii la soo dhaafay waxa hawada laga saaray labada ciwaan ee min halkii milyan haystay taageerayaashooda Miss Wall iyo Huda Amu kuwaas oo hawa ka saaristooda daqiiqada yar ay u dhaxeeyeen waxa hawada laga saaray saacadii hore gabadha la magacaabay Miss Wall taas oo taageerayaasheeda hawada lagu 1 milyan gaaray taasi oo u dabaaldegaysay iyadoo qorsheynaysa in caasimadda Muqdisho ay ku dhigato xaflad la yaab leh oo ay ugu dabaaldegayso Huda Amu ayaa u hambaleysay oo ku tiri Miss Wall keep going waad ku maadsantiin 1 milyan taageerayaal soo xaris adigu taageerayaashaada waxaan idin leeyahay hambaliyo hase yeeshee daqiiqad kadib hambalyadeeda waxa hawada laga saaray Miss Wall taas oo ooyin iyo sidoo kale carar la yaab la baraa bulshada kaga hadis iyadoo dadku inta ugu badan ee arintaasi ay ka falceliyeen Miss Wall oo waxa la arkay si dhab ah caloosha ugu hadlaysa maadaama ciwaankeeda 1 milyan ee doorsan u soo rafaadaysay isgaarsiinta lagu cunay amba hawada laga saaraba hagaag Miss Wall kadib daqiiqada oo baraha bulshada waxa soo gaartay war kale oo degdeg ah oo sheegayo in Huda Amu iyaduna hawada lagu cunay ciwaankeeda 1 milyan ahaad si kastaba aatay iyadoo la ogeen cidda sida rasmiga ugu dambeysay in ciwaanadaas hawada laga saaro ayaa gabi ahaan waxa cabsi weyn ay la soo diristay dadka isticmaala aaladda TikTok kuwaas oo caanka iyagoo sheegay in cabsi weyn ay la soo diristeen waxaana private laga dhigay dhammaan ciwaanadoodii cabsi walwal iyo sidoo kale walbahaar ayaa la soo diristay markay ay arkeen in saaxiibadooda hawada lagu cunay Shushu Abdullah ayaa ugu horeysay dadka muuqaalkeeda ka dhigatay private oo si sir ah ay u daawanayso hase yeeshee Huda Amu markii hawada lagu cunay ayaa warkaas wuxuu noqday mid hawada ku qarxa iyadoo dadku ay la yaaban yihiin gabadha la yiraahdo Miss Wall in hawada lagu cunay ayaa haddana Huda Amu ay ku darsantay dadku ayaana siyaabo kala duwan arintaas iyo sidoo kale waxa yimid kala shaki baraha bulshada dhexdiisa gaar ahaan aaladda TikTok iyadoo qofka kale uu iska eedeynaayo oo qof walba qof uu iska saaray maadaama aan la xaqiijin karin cidda sida rasmiga ciwaanadaasi hawada kaga saartay baraha bulshada gaar ahaan TikTok xilligan aan ilaahay waxa ka taagan daawadayaal cabsi aad u weyn kala shaki ayaa yimid xitaa dad aan shaqo ku lahayn in ay wax jabsadaan iska daayay in ay wax daawadaan ayaa loogu shakiyay ugu dambeynsa gabadha la yiraahdo Huda Amu ayaa soo bandhigtay in Samiixa qaliil gabarta lagu magacaabo ee hawada ka bixisay ciwaankeeda Samiixa oo hadashay ayaa sheegtay in waxa lagu eedeynayay ay waxba kama jiraan Samiixa waxay tiri aniga maba aqaan tiknoolajiyad meel laga maro iyo si meel wax loo saaro hase yeeshee dadku eedeynaya waxa ka codsanaa in ay hubsadaan wixii dhacay Miss Wall ayaa iyadu qudheeda waxa lagu soo wargeliyay Samiixa ee ciwaankeeda jabsatay laakiin Miss Wall waxay sheegtay in iyadu wajiga saxda ay soo bandhigi doonto waxaana laga dhursugayaa xilliga ay soo bandhigi doonto waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan haddii aan la joogto min bilow ilaa dhamaad waxaan ku xasuusinaynaa in muuqaalkan aad follow dhahdo si uu u gaaro saaxiibo badan wadayaal soo dhawaada markan waxaan idiin haynaa muuqaal cusub oo ka duwan muuqaaladii hore Huda Amu iyo Miss Wall oo soo bandhigay cidda sida rasmiga ciwaankooda hawada ugu saartay intaas in ka badan ayaan idiin haynaa daawadayaal balse marka hore waxaan iiga codsanaynaa in muuqaalkan aad follow dhahdaan siina share gareysaan idinkoo leeg dhahaya si muuqaalku uu gaaro saaxiibo badan hagaag sida la socotaan saacadii la soo dhaafay waxa hawada laga saaray labada ciwaan ee min halkii milyan haystay taageerayaashooda Miss Wall iyo Huda Amu kuwaas oo hawa ka saaristooda daqiiqada yar ay u dhaxeeyeen waxa hawada laga saaray saacadii hore gabadha la magacaabay Miss Wall taas oo taageerayaasheeda hawada lagu 1 milyan gaaray taasi oo u dabaaldegaysay iyadoo qorsheynaysa in caasimadda Muqdisho ay ku dhigato xaflad la yaab leh oo ay ugu dabaaldegayso Huda Amu ayaa u hambaleysay oo ku tiri Miss Wall keep going waad ku maadsantiin 1 milyan taageerayaal soo xaris adigu taageerayaashaada waxaan idin leeyahay hambaliyo hase yeeshee daqiiqad kadib hambalyadeeda waxa hawada laga saaray Miss Wall taas oo ooyin iyo sidoo kale carar la yaab la baraa bulshada kaga hadis iyadoo dadku inta ugu badan ee arintaasi ay ka falceliyeen Miss Wall oo waxa la arkay si dhab ah caloosha ugu hadlaysa maadaama ciwaankeeda 1 milyan ee doorsan u soo rafaadaysay isgaarsiinta lagu cunay amba hawada laga saaraba hagaag Miss Wall kadib
daqiiqado uun baraha bulshada waxaa soo gaarta war kale oo degdeg ah uu sheegayo in Huda Amuun iyaduna hawada lagu cunay ciwaankeeda halkii milyan ahaad si kastaba ha ahaatee iyadoo la ogeen cidda sida rasmiga ugu dambeysay in ciwaanadaas hawada laga saaro ayaa gabi ahaan waxaa cabsi weyn ay la soo diristay dadka isticmaala aaladda TikTok kuwaas oo caanka iyagoo sheegay in cabsi weyn ay la soo diristeen waxaana private laga dhigay dhammaan ciwaanadoodii cabsi walwal iyo sidoo kale walbahaar ayaa la soo diristay markay arkeen in saaxiibadooda hawada lagu cunay Shuushu Cabdalla ayaa ugu horeysay dadka muuqaalkeeda ka dhigatay private oo si sir ah ay u daawanayso hase yeeshee Huda Amuun markii hawada lagu cunay ayaa warkaas wuxuu noqday mid hawada ku qarxa iyadoo dadku ay la yaaban yihiin gabadha la yiraahdo Miswal in hawada lagu cunay ayaa haddana Huda Amuun ay ku darsantay dadku ayaana siyaabo kala duwan arintaas iyo sidoo kale waxaa yimid kala shaki baraha bulshada dhexdiisa gaar ahaan aaladda TikTok iyadoo qofka kale uu iska eedeynaayo oo qof walba qof uun iska saaray maadaama aan la xaqiijin karin cidda sida rasmiga ciwaanadaasi hawada kaga saartay baraha bulshada gaar ahaan TikTok xilligan aan ilaahdaa waxaa ka taagan daawadayaal cabsi aad u weyn kala shaki ayaa yimid xitaa dad aan shaqo ku lahayn in ay wax jabsadaan iska daayay in ay wax daawadaan ayaa loogu shakiyay ugu dambeynsa gabadha la yiraahdo Huda Amuun ayaa soo bandhigtay in Samiixa Qaliil gabarta lagu magacaabo ee hawada ka bixisay ciwaankeeda Samiixa oo hadashay ayaa sheegtay in waxa lagu eedeynayay ay waxba kama jiraan Samiixa waxay tiri aniga maba aqaan tiknoolajiyad meel laga maro iyo si meel wax loo saaro hase yeeshee dadku eedeynaya waxa ka codsanaa in ay hubsadaan wixii dhacay Miswal ayaa iyadu qudheeda waxa lagu soo wargeliyay Samiixa ee ciwaankeeda jabsatay laakiin Miswal waxay sheegtay in iyadu wajiga saxda ay soo bandhigi doonto waxaana laga dhursugayaa xilliga ay soo bandhigi doonto waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan haddii aan la joogto min bilow ilaa dhamaad waxaan ku xasuusinaynaa in muuqaalkan aad follow dhado si uu u gaaro saaxiibo badan daawadayaal soo dhawaada markan waxaan idiin haynaa muuqaal cusub oo ka duwan muuqaaladii hore Huda Amuun iyo Miswal oo soo bandhigay cidda sida rasmiga ciwaankooda hawada ugu saartay intaas in ka badan ayaan idiin haynaa daawadayaal balse marka hore waxaan iiga codsanaynaa in muuqaalkan aad follow dhahdaan siina share gareysaan idinkoo leeg dhahaya si muuqaalku uu gaaro saaxiibo badan hagaag sidaa la socotaan saacadii la soo dhaafay waxaa hawada laga saaray labada ciwaan ee min halkii milyan haystay taageerayaashooda gaarayeen ee Miswal iyo Huda Amuun kuwaas oo hawa ka saaristooda daqiiqada yar ay u dhaxeeyeen waxa hawada laga saaray saacadii hore gabadha la magacaabay Miswal taas oo taageerayaasheeda hawada lagu 1 milyan gaaray taasi oo u dabaaldegaysay iyadoo qorsheynaysa in caasimadda Muqdisho ay ku dhigato xaflad la yaab leh oo ay ugu dabaaldegayso Huda Amuun ayaa u hambaleysay oo ku tiri Miswal keep going waad ku maasantiin 1 milyan taageerayaal soo xaris adigu taageerayaashaada waxaan idin leeyahay hambaliyo hase yeeshee daqiiqad kadib hambalyadeeda waxaa hawada laga saaray Miswal taas oo ooyin iyo sidoo kale carar la yaab la baraha bulshada kaga hadashay iyadoo dadku inta ugu badan ee arintaasi ay ka falceliyeen Miswal oo waxa la arkayay si dhab ah caloosha ugu hadlaysa maadaama ciwaankeeda 1 milyan ee dhowr san u soo rafaadaysay isgaarsiinta lagu cunay amba hawada laga saaraba hagaag Miswal kadib daqiiqado uun baraha bulshada waxaa soo gaarta war kale oo degdeg ah uu sheegayo in Huda Amuun iyaduna hawada lagu cunay ciwaankeeda halkii milyan ahaad si kastaba ha ahaatee iyadoo la ogeen cidda sida rasmiga ugu dambeysay in ciwaanadaas hawada laga saaro ayaa gabi ahaan waxaa cabsi weyn ay la soo diristay dadka isticmaala aaladda TikTok kuwaas oo caanka iyagoo sheegay in cabsi weyn ay la soo diristeen waxaana private laga dhigay dhammaan ciwaanadoodii cabsi walwal iyo sidoo kale walbahaar ayaa la soo diristay markay arkeen in saaxiibadooda hawada lagu cunay Shuushu Cabdalla ayaa ugu horeysay dadka muuqaalkeeda ka dhigatay private oo si sir ah ay u daawanayso hase yeeshee Huda Amuun markii hawada lagu cunay ayaa warkaas wuxuu noqday mid hawada ku qarxa iyadoo dadku ay la yaaban yihiin gabadha la yiraahdo Miswal in hawada lagu cunay ayaa haddana Huda Amuun ay ku darsantay dadku ayaana siyaabo kala duwan arintaas iyo sidoo kale waxaa yimid kala shaki baraha bulshada dhexdiisa gaar ahaan aaladda TikTok iyadoo qofka kale uu iska eedeynayo oo qof walba qof uun iska saaray maadaama aan la xaqiijin karin cidda sida rasmiga ciwaanadaasi hawada kaga saartay baraha bulshada gaar ahaan TikTok xilligan aan ilaahdaa waxaa ka taagan daawadayaal cabsi aad u weyn kala shaki ayaa yimid xitaa dad aan shaqo ku lahayn in ay wax jabsadaan iska daayay in ay wax daawadaan ayaa loogu shakiyay ugu dambeynsa gabadha la yiraahdo Huda Amuun ayaa soo bandhigtay in Samiixa Qaliil gabarta lagu magacaabo
ee hawada ka bixisay ciwaankeeda. Samiixo oo hadashay ayaa sheegtay in waxa lagu eedeynaya ay yihiin waxba kama jiraan. Samiixo waxay tiri aniga maba aqaan tiknoolajiyad meel laga maro iyo si meel wax loo saaro, hase yeeshee dadku eedeynaya waxaa ka codsanaa in ay hubsadaan wixii dhacay. Miswal ayaa iyadu qudheeda waxaa lagu soo wargeliyay Samiixa ee ciwaankeeda jabsatay, laakiin Miswal waxay sheegtay in iyadu wajiga saxda ay soo bandhigi doonto, waxaana laga dhur sugayaa xilliga ay soo bandhigi doonto. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aan la joogto min bilow ilaa dhammaad, waxaan ku xasuusinaynaa in muuqaalkan aad follow dhahdo si uu u gaaro saaxiibo badan.